saddex arrimood baan u imi waata koowaade musharaxiinta waxaa laga sharxayaa xisbiga kulmiye aniguna waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye malaa waxaa laga yaabaa dareenkaygii iyo doodaydii iyo damacaygii iyo dudmadaydii inaan kulmiye ka tegey kama tegina welina aragtidayda waan qabaayo waan ku adkay anoo kulmiye ka mid ah taasi waa qodobka labaad beelaha iyo bulshada raggan soo xulay mudankooda xidhiir badan baa naga dhaxeeyay waqtiyo adag baan soo wada qaadanay muxuu ahaayey xurmaanu kala mudannahay waqtiyo badan baan ka mid ahaa raggan taasna waa ta labaad ta saddexaad musharaxiintan afartoodaba waan aqaan laakiin laba nin si gaaraanu saaxiib u nahay cabdi ibraahim maxamuud cabdi jaaquur oo siduu sheegay aan isku lot ahayn axmed cabdi aadan axmed darbaan anigu axmed xiis baanu aqaanay ninkaasna aqoon fiican saaxiib baanu nahay aad baan uga weynay isaga waa ina yar waxaan ugu tegey horena way isu naqaana waxaan ugu tegey waa nin qoraaya falanqeeya siyaasadda waxaan ugu tegey dhoqosh magaalo faransiiska ka mid oo dhoqoshay la yidhaahdo baan beri dhowto ugu tegey waxaan leeyahay aad iyo aad baan beeshan u bogaadinayaa iyo bulshadan guddiga guuliyo gobonnimona waa bogaadinayaa maanta gacantiinay ku jirtaa dadka burca maamulaya iyo dadka baarlamaanka idiin joogaya dee ama dad dantood maraatayaalabaad soo dooranaysaan ama dad danihiina guud ka shaqeeya wuxuu yidhi ninkii geela u heesay ragna dhuunuu kuu dhex joogaa ragna dhaqashu kugu dhaadhacay taasi waa qodob nimankaa qofka maanta la cogaya xilka loo dhiibayana afar hal baa laga rabaa kow caqlun yarshiduhu caqli iyo xis haga oo wanaagsan inuu leeyahay diinun yacsimuhu diin xakamaysa xayaa'un yamnucuhu xishood qabta iyo xasabun yasuunuhu iyo sharaf ilaalisa isaga afartaasa qofkaa laga rabaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin saddex arrimood baan u imi waata koowaade musharaxiintan waxaa laga sharxayaa xisbiga kulmiye aniguna waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye malaa waxaa laga yaabaa dareenkaygii iyo doodaydii iyo damacaygii iyo dudmadaydii inaan kulmiye ka tegey kama tegina welina aragtidayda waan qabaayo waan ku adkay anoo kulmiye ka mid ah taasi waa qodobka labaad beelaha iyo bulshada raggan soo xulay mudankooda